الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ولا ليال waxaynu ogsoonnahay caawa gelinka dambe iyo berrito inuu bilaabmayo sanadkii cusbaa ee gaalada. sanadkaa cusub maxaa sharcigu ka yidhi mowqifkuu ku taagan yahay? dad badan baa waxay u dabaal degaan oo ay u dhaqmaan siday gaaladu u dhaqmaan, ama gudaha joogeen ama dabadda, ama dowlad ha ahaadeen ama shicib, ku farxo oo fasaxo oo dabaal degoo xafladeeya. markaa afar qodob ayaynu ka wacyigelin lahayn, in wax yar ka odhan lahayn. qodobka u horeeya waxa weeye sanadkaa ay yidhaahdeen waa dhalashadii nebi ciise, taariikhdiisa. iyo qodobka labaad oo sharcigeennu waxa uu ka yidhi halku ka taagan yahay, daliilada diidaya oo qodobka saddexaada, iyo ugu dambeyn xigmadda loo diiday. marka u horeysa taariikhdaasi waxay ka soo jeedaa diimihii nimankii dabcaabudka ahaa ee wathaniyiinta la odhan jiray. nimanka wathaniyiinta ah ama nimanka romanka la odhan jiray reer yurub, diinta wathaniyiinta ku horreysay dabcaabudka. diintii nasaarada diintii intay ka tageen nebi ciise ayay raaceen diinta dabcaabudka. hadday tahay dabka la shidi jiray, ayaamihii la dabaal degi jiray, ilaahyaasha magacyadoodii, dhirtii la isticmaali jiray. markay noqdeen kuwo diintoodii ka baydha bay diintii dabcaabudka raaceen. maalinkan aynu soo dhaafnay iyo maalinkan ay leeyihin ciisa dhashay oo ma dhalanin. sidaa daraaddeed wuxuu ku daba leeyahay maalinkan ciid ay dabcaabudku isticmaali jireen oo busturiya loo yaqaanay. waa aalihadii ama ilaahyaashii ay caabudi jireen nimankii Greek ahaa. ciidda iyada ah dhaqamadoodu waxay ahayd wixii xaaraan inuu habeenkaa xalaal noqdo: doofaarka, khamriga, sinada iyo wixii la mid ah. ciid waxay ahayd shaydaanku horkacayo wixii qurunah iyo wixii foolxun oo u qurxiyey, inaan dharka la maydhin, la dhaashanin, guryaha la nadiifinin. mabaadiday ka mid ahayd ciiddaasi ay ku fadhido kullu haadaa yuziilu lxada fi lxayaa. arrimahaasi nolosha waxay ka qaadayaan baydha nasiibka. waxaa macruuf oo la ogyahay qolyaha baaxifiinta ah ama kiristanka kuwooda wax qoraa, kutuba jira ay qoreen oo ay yidhaahdaan al-usuulu alwathaniyatu fi lmasiixiya. raadka weyna ay diintii dabcaabudku ku leedahay diinta kiristanka. waxaynu taa uga jeednaa, taariikhda u xusaynaa, markay iyagu iska daayeen diintoodii taasay raaceen. innagana waxay nala doonayaan inaynu diinteenna xaqaa dayno, tooda raacno. markaa dad kastoo xaqa ku ekaan waaya ummado kale ay baadil ku raacaan. mowqifka sharciga iyo sharcigu waxa uu ka qabo, ugu horeynba ilaahay baa wuxuu diiday subxaanahu wa tacaala muwaalaat lkufaar, gaalada in gacaltooyo loo muujiyo, xigto iyo tol laga dhigto. ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda waannasaara wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin. suurat lmaa-ida. dadka shahaadanayu ilaahay u yeedho wuxuu ihi nimankaa yuhuudda la yidhaahda iyo nasaarada, labadaa qolo ee adduunka wareeriya inkaarqabayaasha, labadaa qolo ha ka dhiganina sokeeye iyo dadaa diin ku jeceshihiin. iyagaa iska kiin xiga buu ilaahay subxaana wa tacaala. qofka iyaga weli iyo gacal iyo xigto ka dhigta ee jeclaadee diin ahaan ku jeclaadana iyaguu ka mid yahay. halkaasuu ilaahay dhigay subxaana wa tacaala. mar labaad sharcigu isagoo xaaraantinimeynaya nimankaa raaciddooda diin ahaan lagu raaco, naha tashabuh
wuxuu sharcigeenu diiday in la isu egeysiiyo gaalada ilaahay baa wuxuu uhi walaa tattabic sabiila almujrimiin qofka muslimka ilaahay ula hadlaya waxa lay dembiilayaasha dariiqooda ha raacin waa dulmi waanaad eedi aakhiriya adduunyada labadaba rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ummadiisa isagoo la hadlayo asxaabta ka bilaabay waxau ihi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qolaka isu egeysiiya iyagu ka mid yahay adduunyadu u eegaanaya calaamadoodu u yeelanaya markhaati baa looga noqonaya aakhiruu la soo xaadiraya marka haddaad muumin isu egeysiisana la mid baad haddaad nebi maxamed isu egeysiiso waad raaci haddaad gaal isu egeysiisana la mid digniinna wuu bixiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu sii xusayaa aakhiru zamaanka inkaarqabayaasha iimaan lawayaashii inay islaam muslimiinta duufsan doonaan latatabicunna sanana aladiina min qablikum ذراعا شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى آخر الحديث المعروف قل الله يبو النبي يقول إن ما كاويد دبا عري قال هذا طلابة قادان يتاكدوا ذي رات كودا يدين قري قد كا بهاش الله يدادا أفرياد دي لذا مما سعقل إذا عريد هدا يقلان ويدي كدب قلي وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نبي قالوا نرهم بشيغو بلدت كانوا ناق مانتا يا كودا إذا عند waxay ku daydaan rasuulka sala allahu calayh ma saxaabadii ma salafkii markaan la isleeyayn qolo waliba qolay ku daydaanoo tusaale u ah madaxdu cid bay ku dayataa dhalinyaradu cid bay ku dayataa dumarku cid bay ku daydaan waa digniinuu nebigu bixinaya sala allahu calayhi wasalam muslimka marka uu rabaynayo ummadda islaamka mar kale waxau ihi khaalifu lmushrikiin wafiru llixaa waxfu shawaarib nimanka gaaladaa khilaafa oo garhkana sii daaya shaarubahana aada u gaabiya oo maqastaa mariya khaalifuu buu nebigu inagu rabaynayaa iyaga khilaafina iyaga khilaafa buu leeyahy hawaafaqina mar kale rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam ina alyahuuda waannasaara laa yusbiquun fakhaalifuuhum yuhuudda iyo nasaaradu garhka ma casaystaan ma xinaystaan ma bedelaan caddaankay ku daayaana khilaaf oo bedela oo ka lariya midab mariya waa si guud mabda'a islaamkeennu inagu rabeeyey baa kaasa doorkeennu maaha dowru tabaciya ee waa dowru namuudajiya dadka innagaa tusaale u ah oo dawadii dadka sidnay caalamka marka inaynu dadka tusaale u noqonno mooye in tusaale laynoo noqdo dhaqan iyo diin iyo akhlaaq halkaasuu dhigay sharcigu intaasoo qur-aan iyo xadiidaa sheegay waxaynu isugu akhriyaynaa qofkii ilaahay hanuun la doonayna daliiladuu dhagaysan kii kalena wuxuu hallaabi isagoo xaq u cadya ciidoodan iyo xafladahoodan hadday tahay christmas daygii aynu soo dhaafnay hadday tahay waxaanay new yorka u yaqaanaan labadaba ee caawa gelinka dambe bilaabmaya aad arki doonto buluug laydhka la ridayo iyo halka dadku marayo dad baaba usii xidhxidhanba oo usii diyaaraba waxaa nasiib darro weyna meelihii dadka muslimiinta xarumahoodii diintu ay ku yaaleen iyo duwal alkhaliij halkay maanta marayaan innagaaba dhaannaa la odhan karaa soomaalideenna waa dhaan geedkii yaraa $10 iyo $20 la siin jiray christmas ay qaadan jireen meelaha la wadwadi jiray $3,000 buu marayaa sida loo kala iibsanaya nasiib darrada dhacday ciidahooda haddaba markay culimmadu ka hadlayaan waxay u soo qaataan nusuustan ilaahay baa wuxuu uhi waaladiina laa yashhaduuna zuur wuxuu ilaahay ammaanay awliyadiisa iyo mu'miniinta wuxuu uhi dhaqanka mu'miniintu waxa weeye markay waxa dembiga ah soo maraan way iska dhaafaanoo ma dhegaystaan oo kuma dhaqmaan culimmadu waxay leeyihiin zuurkaa iyo dembigaasi waa ciidahoodaasa ka mid ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa daliiladii xaaraantinimeynayaynu wadnaa ciidahooda inaan la dabaal degayne wuxuu madiine tegay iyagoo reer madiine ay leeyihiin laba ciidood bay lahaayeen ciidda mahrajaanka iyo ciidda nayruushka nayruus baynu inaguba nidhaahnaa iminka reer miyigeenna dabaal degeen waxaan ogaa anigu iyagoo caleen qoyanna ka laalaadiya aqalka albaabkiisa ilinka aqalka dabna la shido neef riyaana la gowraco
habeenkaa lagu xisaabtamo oo noqdo habeenkaasi habeen calaamadsan labadaa maalmood bay xusi jireen rasuulku sala allahu calayhi wasalam weydiiyaa waxay idhaahdeen dee waa laba ciidood bahana waa sii wadayna maya iska daaya buuri laba ka khayr badan buu ilaahay idinku bedelay ciidul adxaa waa ciidulfitr labada ciidood aynu naqaano rasuulku sala allahu calayhi wasalam ciidaha isagoo dadka u diidayaa ninbaa maalin su-aal weydiiyeyoo waxa uu ihi wakhti horaan nadar ku galay meesha buwaano la yidhaahdo inaan neef ku gowraco geel inaan ku gowraco geel buwaanada aada sheegayso miyuu yaallaa buu rasuulku yihi sanam miyuu halkaa yaallaa aada leedahay waxbaan ku gowracayaa maya hal kaana fiiha ciid dadka wakhtigii gaalada miyay jirtay ciid halkaa lagu qaban jiray maya haddaba waad iska fulin kartaa buuri marka laa nadra laa wafaa'a linadrin fii macsiya wixii dembi ah haddii aada ku nadarta lama fuliyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu hadmintaa sameeyey ee uu u diiday diinta kufriga dadka muslimiinta ah wuxuu markaa ku abaabulay oo u sheegay inay ciidahooda weyneeyaanay oogaan siduu islaamku u faray maalin maalmaha ka midaba caaisha xadiidku waa saxiix weeye waxay leedahay abubakar baa soo galay hablo yareer baa baalkan durbaankay tumayeenoo nebiga agtiisay ku garaacayeen iyagoo dabaal degaya ciiddii maalinkaa ciidda rasuulku iska daayay sala allahu calayhi wasalam ha farxeeno ha dabaal degeen abubakar baa markaa u diiday hablihii wixii ay garaacayeen iska daa buuhi haadaa ciidunaa ahla alislaam waa maanta waa ciideennii haddayna dadka muslimiinta iska farxaan oo ha garaaceen da-yartaasiyo iska dah waxaa kaloo rasuulku xusay sala allahu calayhi wasalam ayaa sidaa ay maalmaha ciidahee sanadku inoogu kala duwan yihiin ciidda usbuucuna way inoo kala duwantay innaga ciiddeennu waa jumcaha iyaguna waa sabtidii axadda halkee la isla marayaa maanta fasaxii waa laga kaxeeyey jimcadii iyo khamiistii wuxuu sii marayaa caalamulislaam in badan oo ka mid a in jumcadii maalin shaqo laga dhigo sabtidii axaddii loo kacay nebigu waxau uhi naxnu alaakhiruuna asaabiquun ummadaha innagaa u dambayna soo bixidda adduunyada marka la eego laakiin aakhiro innagaa usoo horeynayna maalinkan jumcahana waxay ilaahay u bandhigay qoladii yuhuudda iyo nasaarada inay ciid ka dhigaan ay weyneeyaan oo labaduba way diideen yuhuudduna sabtiday doorteen kiristanka ama nasaaraduna waxay doorteen axadda innagaa labadaba ka horeyna doorashadoodu waxay keentay inay naga dambeeyaan ay dib dhaceen bay xaqii weydaarteen tamayus bay tilmaamaysaa arrimahaas inuu nebigu ina barayo sala allahu calayhi wasalam inayna ummad gooniya waxaa kale oo aan bannaanayn in hadiyadooda la qaato ninbaa cali ibna abi aalib u yimidoo wuxuu u keenay hadiyad maxay ahayd buu ihi hadiyadoo dee waa hadiyaddii la qaybin jiray buu nayruushka iyo maalmaha gaalada ciiddooda markaa waxau ihi fasnacuu kulla yowmin fayruusa wuxuu yihi dee isagu minku xaflad iska samaysta fayruus la idhaahdo nayruuska iska daayo magacoodii iyo hadyadoodii iyo xafladoodaba iska daayo xaflad gaara samaysta iyo maalin walba waktina ha ku qaydina hadyadda kala qaata waktina ha ku qaydina markaa wuxuu diiday in hadyadooda la qaato wakhtigoodana la raaco wakhti mucayanana loo samaysto sidoo kale waxaa la diiday tahniyadda oo tahniyaddu inaad tahniyadayso oo tidhaahdo maalin wanaagsan ciid wanaagsan inaad tidhaahdo gaalada ciidahooda waxay sheegaysaa baadilkooda inaad ku hambaliyeysay baadil bay waxani waa baadil waa xaqdarro marka haddii aad qofka ku hambaliyeyso waa inaad waafaqday bay ka dhigantay oo aada sugtay baadilka ah mana odhan kartid anigaba way hambaliyeeyaa ciiddayda oo ayaamaha ciiddeenna iyo ramadaantii wayna hambaliyeeyaan dee adiga waa xaq in lagu hambaliyeeyaana waa xaq laakiin isagu waa baadil marka baadilna lama hambaliyeeyo waxay culimadu markay nusuustaa iyagoo ka duulaya isla waafaqeen calaa taxriimi atashabuhi bilkufaar wa xuduuri acyaadi intaasoo daliilaa markay eegaan inay gaalada in la isku shabahaano xaaraanta ciiddooda in la xaadiraano xaaraan tahay
عبد الله ابن عمر بن الخطاب وحر من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. قف كانوا قال هذا النساء حفلته ذا سمايا اسكو شبهها إلى وساكو دينتو تي قيامها ولا لصو حاضرين يا أبو. عمر بن الخطاب الله كرر للنغضو وحوسقنا إلى ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن سخط ينزل عليهم. عيده ذا قال هذا هو تجينا ماشي كورور سيه كنيسة هذا الله حاضرين على الله كسود دقيس مال على الله كسود دقيس وينو كعررينا قلب كودا بيا أفراد محل ديني إن من كان يجا الرمها إنه صار شيء لا لو ده يقول حكمة دور رئيسة وحوي وحي شيء يسا الرمها صار لقوا فقط شعيل قال إن لقوا على هذا الرين دينتنا وحرام ها الرمها الدنيا ده هتو شقة وناكسين شقة دي سوات كوش علان هتو قفكو قبر قال هذا قرسنا يد طبعا شعيل بو قرسنا يا لكن شعيل كحرام تاعي وشعيل كديني جاه الدقن يا أخلاق يا كضياشو كشرع وحرام تنبي لا سوى كلا قال العلماء marka inaad arrimahan ku waafaqday waxay sheegaysaa mabda'iyan inaad nimanka u jeclaato kaasina waa xaraan waxa labaad oo loo diiday kathratu fasaad gaal soo ururay oo yiri waan xafladaynayaa wuxuu hayaa waa xumaan waxa la cunayo iyo waxa la sameeyo iyo waxa la cabayo de waynaga dhaqaana waxa lagu hayaa ilaahay baa lagu caabudaya ma wanaag baa lagu hayaa waa khamrigi waa gaalnimadii waa sinadii waa durbaanadii la garaacay waa rag iyo dumar isdhex qaadaya waxa saddexaad oo loo diiday in laha dalaalaat diiniya waynaga hore u soo sheegnayo ma aha arin caadiya laakiin waa arin diiniya oo iyaguna dad ay ku raaceen inaguna aynu ku sii raacayno diin lagu raacana la diin waxa afraad waa tadyiic lil huwiyyah al islaamiyya de abtirsimadaynu lahayn baynu luminaynaa ummad islaam baynu nahay diintoodii xaq ah haysta nabiyullaahi maxamed ilaahay ugu soo dhibo ka dhaxlay aan la bedelina sideedii diintii ay tahay idan markaa in laga bayraa huwiyadii iyo abtirsiimadii islaamka iyo cid aynu ahayn baynu luminaynaa haddaa taa lumisana dee waad ka dhacdo dariiqii xaq ahaa weydaarati marka inagu istiqlaaliyaynu leenahay inaynu mustaqil u nahay arrimaha xaqa raacistiisa inaga laynagu raaca mooyaan saynu hore usoo sheegnay arrinta shanaad loo diiday waxa weeyaan dee duqdu halkay martay da'yartuna ku raacdaa haddii inagu aynu arrimahan oo samayno dadka inaga dambeeyana way inagu dayan aabbaan soo gaaray iyo ayeeyo iyo awowgun bay ubadka inaga dambeeya odhan doonaan had iyo jeer waxa iska macruufa ummadaha qolo waliba inay waalidkoodii iyo asalkoodii hore ku daydaan ay yidhaahdaan hidiya dhaqanbu waxaan inoo ahaa ilaa waa halkay gaalnimada iyo shirkigu ka yimi wuxuu ahaa qowmu nuux ilaahyaashan ay caabudayeen waxay soo gaadheen aabbayaashooda weyneeya oo yidhaahda hebel iyo hebelnimo wanaagsan baan sab cibaadaysan jireen aanu cibaadaysanno way ku dayan jireen shaydaanku qarnigaa dambe uu yimi wuxuu uhi kuwanaaba la caabudi jiray dee waayey bayna kol hadday aabbayaasheen caabudi jireen waqaaluu laa tadarunna aalihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا رج وناكسن بي erayadaasi magacyo u ahaayeen oo lagu xadgudbo lagu gaaloobay idan marka waa inaad ogaato haddaad wada xun marto waxa la wixii ka daba maraa dambigay galeen adigana in leeg baad leedahay haddaad wada wanaagsan martana daayarta iyo qarniga inaga dayanaya ajriga ay helaan in leeg baynu leenahay waxaanaynu daa'imka waa inaga sheegayno reer magaalka iyo dadka had iyo jeer jaaliyadaha dibadda joogay waabay la yaabayaan ba arrimahan marka laga hadlayo oo arrin iska caalami waa waalidkii baan ku soo gaarnay isagoo baadhigaas sameeyo oo dabkaashida waxa kuweena reer biyiguna dee way kula yaabi haddaad tidhaahdo waxaan sharciga ma waafaqsano intee la soo waday bay ku odhan marka in lagaaga daydo ayaa soo baxaysa arrinta lixaad ugu dambaysa waxa weeyaan ninaan isagu ku aaba yeelayn sideed adigu daba ordi miyay nala ciidaan masalaad bay nala tukadaan ma ciidaheena miyay nala weyneeyaan maya waabay nagu dheeldheelaano way nagu xadgudbaano ummaddu inay ururaan ay oogaan uma ogolaadaan adigana sidaad
sideed markaa uga yeelaysaa kaa ku diiday kugu dheeldheelaya lihadii lasbaab iyo qaar kaleba oo xikmadaha loo diiday marka waxaynu leenahay waa arkaynaa kolley mawjadaynu ka hadlayna iyo dad badani siduu dhaqmaya inay kala fog tahay laakiin in xaqa la caddeeyo oo dadka lagu wacyigeliyo oo la isa sii gaadhsiiyo oo dadka had iyo jeer baraha bulshada wax ku gaadhsiiya da-yarta ah iyagoo ilaahay ugu dhowaanaya ajrina ku doonaya inay sii gaadhsiiyaan xaqan dadka kaloo lagu baraarujiyo afarta arrimood waxaani taariikhdu lahaa iyo halku ka yimi iyo daliilada sharciga ee diiday iyo xukunkiisa sharciga iyo xikmadda ku jira allah inagu anfaco اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة